نبي الله يا نور العين داوديال iminka waxaynu ku sugannahay xaafadda Sanca degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxa halkan inooga bilaabanayo safar dheer oo aan ku gaareyno magaalada Warshiq halkaas oo aan kaga qayb galayno siyaaratul mashaayikh ee kala ah Sheekh Maxamed Sheekh Xuseen iyo wiilkiisa Sheekh Xuseen Sheekh Maxamed oo loo yaqaan Sheekh Xuseen Al-Qadri safarkeena waxa inagu heliyo la taliyaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed ee Sheekh bin Sheekh الله نبي الله يا نور العين sida aan ognahay safarkeena ayaa qaadan doona muddo 2 saacadood ah maadaama magaalada Warshiq iyo Muqdisho ay isku jiraan dhowr iyo 60 kiiloomitir صلى عليك الله bilowga safarkeena ilaa aan ka gaarayno magaalada Warshiq waxa inoo da'ay roob maadaama kuleel iyo abaaro badan ka jireen wadanka waxaana sidoo kale arintaasi ka hadlay la taliyaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Sheekh Daawud oo ku magac dheer Sheekh bin Sheekh الله سبحانه وتعالى ugu mahad celinayna abaartii oo bariyahan wadankeena ka jirtay iyo kuleelkii ilaahay maanta waa naga reebay اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا صحا عاما طبقا مجللا دائما الى يوم الدين اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانتين بإذن رب المغرب عيني الله نبي الله يا نور العين wali waxaynu ku guda jirnaa safarkeeni aan ku gaari lahayn magaalada Diimeedka Warshiq hadda waxaynu soo gaarnay Maaxay waxaana inooga dhiman safarkeena 10 kiiloomitir ala socda daawadayaal عيني الله نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين ما شاء الله waxaa ku faraxsanahay ziyaaradii mashaayikh أو الشيخ محمد شيخ حسين يويد كيسة أو الشيخ حسين الشيخ محمد شيخ حسين أو سفر دير مصابة حني مجال المقدسة عاصمة الصومالية هذا أنا أقول نهاي دقمة ورشيخ مع ملكورات الشبيلة هذا وحتاجنا هي مع حي بإذن الله الباري إلهي نحك برينا إن إلهي هلا نوع من سما عيني الله نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين xilli casir liiqad ah oo aan ka soo carawnay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir haatan oo ay saacadu marayso halkii saac oo habeenimo waxaan soo gaarnay magaalada Diimeedka Warshiq soo dhaweyn afur iyo nasiino kadib waxaan la hadalnay qaar kamid ah mashaayikhdii nagu helinaysay safarkeena iminka waxa soo gaarnay degmada Warshiq ee maamulka gobolka Shabeelle waxa uu imaanay ziyaaradii mashaayikda أو الشيخ محمد شيخ حسين iyo wiilkiisa أو الشيخ حسين الشيخ محمد شيخ حسين oo bari oo talaada ah ka bilaabo doonta degmada Warshiq jadwalka ziyaarada bari nuska saac waxaa jiri doono hamsiyada duhurkii waxaa qadmo lagu akhri doonaa waalidkeena Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Maxamed Sheekh Daawud Cali Diris ضريحيسا بعد العصر وحالتي دونا ضريح مشايخنا أو الشيخ محمد شيخ حسين هي أو الشيخ حسين الشيخ محمد شيخ حسين بعد الغضمة وحاجري دونا إن شاء الله تعالى دو إلى إدمو بنانبحي إن شاء الله تعالى بنانبحك بعد المغرب والله فوري دونا وحاجري دونا إن شاء الله صبعك بعد إن شاء الله تعالى هدي إلى غدرو تراويح لك صبحه وحاجري دونا ولا نصد دونا لحسا وحنو بلاو دونا ذكري أو دفرك ذكري دفرك دي أو ما إن شاء الله تعالى وحق حق دونا دعدي
oo noo jideeyay waalidkeena Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar jadwalka saas ayuu u socon doonaa hada billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii alla idmo galabta talaadada ah ayaa lagu wadaa in halkan lagu qabto banaanbaxa siyaarada iyadoona habeenka arbacada ah lagu soo gabagabayn doono dhafarka siyaarada maxamed xasan cilmi shabakatul mutaxaabuuna fillaah magaalada Warshiiq gobolka Shabeellada Dhexe